maanta oo taariikhdu ay tahay 18kii bishii 9aad 2015 waxay maxkamadda ciidamada u fariisatay dambi ciqaabeedkii ka dhacay akademiyo taariikhdu markay ahayd 18kii bishii 9aad 17kii bishii 9aad 2015 oo ku bagnayd maalinimadii shalay falkaas oo ahaa fal aad u foolxun oo loo geystay dad shacabe laba marxuum ee la kala yiraahdo Cabdullaahi Ali Salaad 52 jir ah ina Madiino Ahmed iyo Cabdirasaaq Ahmed Gaas 48 jir ah ina Culamo Xasan falkaas oo geysteen 10 askari oo uu yahay abaanduulihii ururka labaad ee daraawiishta ee Jubbaland fadhigoodana uu yahay akademi kadib markay maxkamaddu sanayaashaasi oo xeelalayaha oo hor keenay kadib markay maxkamaddu dhageysatay qiraalka sanayaasha سنة كواد محمد شكري محمد 29 جر أنا فاطمة عبدي كل شيء بقاله وحال عليها كسر يدي إنه طلقاس دلك وحكي جيستي ونقرتي اللبا عبد الرحمن علي عقار صدن جر أنا عذر حيف محمد كل شيء كسمايو وهو قرتي إن لبعض مرحوم وحكي دلي محكمة دورتها سدح محمد عبد دول لبعض الحجرة أنا عنبراء عباية حسن كل شيء أفمدو وهو قرتي إن حبت داسي وحكولها أو وحكي دلي لبعض مرحوم أفر فارح محمد لنس أفر تنجرأ أنا آمنة علي هرابة كل شيء حجر وهم حكمت دورتها كقرتي إنه نمك الشعب كا وحكي دلي اللي وضع شن عبد الكريم شكري جروينه أفرتنجرة أنا آمنة علي هرابة كل شيء كسمايو هم حكمت دورتها كشيء واحد بين أبوره هو راعي تذكرالك اوكي لح عبد الرشيد حسين حسن ما لا لح عبد الرشيد حسين حسن لباتني كوتشرح انا مريم عبد علابه موسى كل شيء دبلي محكمة رتبة كقرتي انه لبada marxuum ee shacabka oo dilkooda wax ka geystay todobo عبد لوح بشير عبد الله سدنجر أنا آمنة أحمد عبد الله كل شيء بدأ أهانا أباندوليه أرك الله بعد هي محكمة دو وعليها حكوسة يدي إن وأمر ديدو لما كاسك عنده كهي فدودي دل كودن محكمة دو ذاك قرتي إن مركي تليها جوزر صوعي ويري لما كوان لاي كدنا لما كل لاي كدب مركي محكمة ضوء وعداتي تدبض عيدي السنة إن أي جلان دنبي قال لجوسو إيديي أي محكمة حكمتي دلت وشع قلبك أفر بقول صدني أفر حركة عمل حركة عقارة الصوماليات بجوا هرنا وقال لي قلبك بقول تاتني كوب دنبي ولا جرأة اوكي هذا القرآن كان بقول تدراتني شديد هذا سنياشة سدح oo ka qayb qaatay dambigaas goobjoogna ka ahaa maxkamadda horteedan aan ka qaranin kow xasan sheekh maxamed kuntan jir ah
ina muslimo cismaan ku dhashay kulbiyow 2 cabdi maxamed xasan 20 jir ah ina abshiro cabdi xasan ku dhashay badhaadhe 3 qadar arab abdi 25 jir ah ina aamino axmed cabdulle ku dhashay badhaadhe waxay maxkamadda ku xukuntay 3 sano oo xariga maadaama ay goobjoog ahaayeen afduubkana ay falkana kuli jireen laakiin wax ku cadeeya maxkamadda way weeday inay xabad rideen iyaguna inay xabad ridin bay maxkamadda waqtigeeda ka qarteen falkaasi ay xabadaas ridin wabillahi tawfiiq xukunkaasi 7 nin waa dil 3 ninna waa xabsi 3 sano ah ciidan ah